nabadgelyo saaxiibayaal anigu waa Jamuni maalinku waa Talaado 22 Maarch 2022 waxaad ku soo dhawaataan wararka Hami Media Group maanta waxa uu dooron dagaal ka dhacay gobolka Boqol iyo faahfaahin laga helayo ciidamada booliska iyo kuwa NISA oo howlgallo wadajir Muqdisho ka sameeyay doorasho adag oo maanta ka dhacaysa magaalada Beledweyne Soomaaliya iyo Qatar oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah akhbaaraadkaasi iyo kuwa kale ay ka mid tahay Russia oo kordhiyay ciidamadiisa cirka ee Ukraine ay ku daawaduntaan warkeena si ahaatee daawadu haddii ay taa marka ku warayso booqashada halkan wala subscribe garabta YouTube la garab video noloda saaxiibada page-kana Facebook lag iyo follow ku riixin ay noo tahay aad u maasan tahay ugu horeyn Somaliland oo qaramada midoobay ka dalbatay inaan dawladda federaalka Soomaaliya loo soo marin deeqaha madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa xarunta guud ee qaramada midoobay kulan ballaaran kula qaatay mid ka mid ah ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin ay madaxweynaha Somaliland iyo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ku lafagureen arrimo muhiim ah oo ku saabsanaa qadiyadda Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo kulanka faahfaahiyay ayaa sheegay inay ka wada hadleen qadiyadda Somaliland iyo sidii ay qaramada midoobay kaalmooyinka ay bixiso si toos ah ay u soo marsiin lahayd Somaliland iyadoo aan cidlo loo soo marsiin madaxweynaha Somaliland ayaa dib ugu laabtay magaalada Washington DC oo ah caasimadda Mareykanka oo ay ku sii wadi doonaan howlihii shaqo ee halka u joogeen iyaga oo maalintii toddobaad ku sugan dalka Mareykanka dhinaca kale Soomaaliya ee Qatar oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar ayaa la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar ahna wasiiru dawlaha gaashaandhigga Khalid bin Mohammed At-Tayiha labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga Soomaaliya iyo Qatar gaar ahaan labada wasaaradood ee gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa uga mahadceliyay martiqaadka iyo soo dhaweynta maamuuska sare ee lagu sameeyay dalka Qatar dawladda Qatar ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha taageera Soomaaliya waxaana si gaar ah 5 sano ee la soo dhaafay ay u taageereysay dawladdu uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale dagaal ka dhacay gobolka Boqol iyo faahfaahin laga helayo dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo xoogga al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada Waajid oo ka mid ah deegaamooyinka gobolka Boqol dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan xoogga al-shabaab ay weerareen saldhigga dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ee degmada Waajid waxaana halka ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkan uu khasare dhaawac ka soo gaaray dhinacyada dagaalamay dad shacab ah hase yeeshee xaaladda amni xilligan degmada ay tahay mid aad u degan sarkaal ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen isla markaana dagaalka ay la galeen ay khasaare ku gaarsiiyeen walow faahfaahin dheeri ah uusan ka bixin dagaalka degmada Waajid ee gobolka Boqol ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka u go'doonsan al-shabaab waxaana mararka qaar ay ku soo qaadaan dagaalyahanada al-shabaab weerar xoogan geeska kale ciidamada booliska iyo NISA oo howlgallo wadajir ka sameeyay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah isgoysyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa xalay ilaa iyo maanta waxa howlgallo wadajir ka sameeyay ciidamada booliska Soomaaliya gaar ahaan qaybta wali oo cadde iyo ciidamada ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya howlgalkan ayaa si gaar ah loogu fuliyay wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa guud ahaan suuqa Bakaaraha iyo meelo ka mid ah degmada Hodan sida isgoyska shaqaalaha Howlwadaag Jidmareexaan Carwo Idko Black Sea iyo isgoyska Bakaaraha howlgalkan ayaa ciidamadu waxa ay ku baariyeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee wadooyinka isticmaalayay iyo guryaha qaar oo ay degan yihiin dadka shacabka ah waxaana saraakiisha ciidamadan ay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu yahay amni xaqiijin maadaama la gudagali rabo bisha barakeysan ee Ramadaan taliyaha saldhigga booliska Howlwadaag Najiib Cabdi Abib oo howlgalkan faahfaahiyay ayaa sheegay in howlgalkan ay uga hortagayeen burcadda hubeysan ee dadka dhaca u geysta iyo xaqiijinta amniga caasimadda isla markaana habeen iyo maalin ay sii wadi doonaan howlgalkan taliya ku-xigeenka qaybta wali oo cadde gaashaanle Isxaaq Maxamuud Ciise oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in howlgalkan ay si laba jibaariyaan isaga oo shacabka ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga
howlgalkan ciidamada booliiska iyo kuwa nisa ay ka sameeyeen muqdisho ayaa daba socda kadib cabasho bilihii lasoo dhaafay kasoo yeeraya shacabka taasi oo la xiriira kooxa burcad ah oo xilliyada habeenkii iyo mararka qaar maalintii dhac u geysta doorasho adag oo maanta ka dhacaysa magaalada beledweyne guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabelle ayaa maanta magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ku qabanaya doorasho 2 kursi oo mid ka mid ah doorashadiisa ay adag tahay labada kursi ayaa waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku kala fadhiyay siyaasiyiin saameyn ku leh deegaanada Hirshabelle waxaana kuraasta doorashadooda la qabanayo iyo murashaxiinta u tartamaya ay kala yihiin kursiga koowaad ee Hob Eber 63 oo ay ku tartami doonaan Cabdullaahi Goodax Barre wasiirkii hore ee waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kursigan muddo dheer ku fadhiyay ee 9 musharax oo kale oo ay ku jiraan xogayaha maamulka gobolka Banaadir Xiirey xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb duqa degmada beledweyne Nadar Tibaax Maalin iyo murashaxiin kale kursiga labaad ee Hob Eber 11 ayaa waxaa ku tartami doona wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo kursigan ku fadhiyay iyo Maxamed Cumar Maxamed maamulka Hirshabelle ayaa weli doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka waxa uga harsan magaalooyinka beledweyne iyo Jowhar waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay soo gabagabeeyaan doorashada guntiga gabagabadii Russia oo kordhiyay ciidamadiisa cirka ee Ukraine ciidamada Russia ayaa kordhiyay ciidamada cirka ee jooga hawada Ukraine 24 saac ee la soo dhaafay sida uu sheegay militariga Ukraine marka laga soo tago adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aad ku hubeysan cadowgu waxa uu kala adeegsanayaa diyaaradaha dagaalka ee xambaara gantaalada Kaursaska iyo gantaalada blastiga cadowgu waxa uu adeegsanayaa diyaaradaha dagaalka ee xambaara gantaalada Kaursaska iyo gantaalada blastiga ah ayuu yiri bayaan ka soo baxay taliska ciidamada cirka ee Ukraine wali waxa socda dagaalka Ukraine ka uu xoogiisu ka soconaya caasimada dalkaasi ee Kiev taawo ciidamada Russia ay ku garaacayaan gantaalo iyadoo ay jiraan kasaarihii ugu badnaa ee dhimasho iyo dhaawac ah ka uu soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya saaxiibayaal inta ayaan ku soo afmarayna warkii oo kala socoteen Hami Media Group waxaa qaniinay wajimuna nabadgelyo